waxaan runtii maalmihii la soo dhaafay booqasho nala joogay ra'iisul wasaaraha iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo waxaan aad uga mahad celinaynaa ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa howlihii badnaa ay ka qabteen Puntland muddadii ay joogeen. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ugu dambeyn wuu ka safray Garowe waana soo socdaalay 3 bari oo shir siyaasadeed ah ayaa aamus iyo saluug ku soo dhamaaday martigelinta Puntland oo ku bilaabatay hoos u dhigid maamuuska wafdiga Rooble ayaa ku soo idlaatay casho miiska dhan kaliya laga joogo. Rooble iyo wafdigiisa ayaana qaatay saacado badan si uu u rumeeyo rajada xukuumadda ee qabsoomida doorasho waqtigeeda ku dhacda. waxa uu la tagay gal ay ku cad yihiin magarmaqalka iyo go'aanka guddoonkuba balse rabitaankiisa waxa ka hor yimid Puntland iyo hoggaankeeda. qodobada laga wada hadlay ee labada dhinac ay isku mari waayeen ayaan ku soo koobaynaa. ra'iisul wasaare Rooble ayaa bilaabay raatirka saaxiibkiisa xukunka uga horeeyay ee garabka maqan isagoo la tagay fulinta heshiisiyo fasaxidda mashaariic iyo sii deynta shahaadada waxbarashada dugsiyada sare ee Puntland oo hore ay isugu hayeen xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo dhanka Puntland. siyaasad ahaan in dani madaxweynaha Puntland uu ka dhaadhiciyo magacaabista guddiga doorashada heer Puntland iyo ku martiqaadka shir doorashada lagu dhaqangelinayo oo lagu qabto Muqdisho. taas ayaa ahay labada qaybood ee galkooda loo dhiibay Puntland ayaa Mareykan kaga jawaabtay farshaxanimo jawaabta dhanka federaalku ay sugaysay. waxay guddoomeen faylasha faa'iidada u aadanta Puntland balse waxa ay ka biyo diideen magacaabis aan shuruud lahayn. dani iyo xukuumaddiisuna waxay ku doodeen in tabashada jirta la xalleeyo iyo in shirka la qabto kadibna magacaabista la aado. taasna waxaa diiday dhanka ra'iisul wasaare Rooble. waan iyo kala warqaadid u dhaxaysta labada dhinac ayaa fashil ku idlaatay. Rooble oo ku jira imtixaankiisa siyaasadeed ee muujinta kartidiisa hogaaminta ayaa wada xaajood ugu tagay qaybaha bulshada sida duubabka dhaqanka iyo bulshada rayidka. kulan kasta oo uu galana waxa uu sheegay caqabadaha taagan oo dhammaantood u muuqda inay xalka ka arradnaayeen. kulan sagootinaha oo xalay qorshaysnaa ayaa baaqday. casho la diyaariyay ayaa dhanka ra'iisul wasaare Rooble tamasho iyo socod Garowe ka doorbideen. Puntlandna aamus ayay ku eebisay shirkaas. dhinacyo kala duwan oo shirka ka qayb galay ayaan ka xiganay in Rooble ahaa xaajo keen aan xal wadin. Puntland iyo danina ahaayeen goobjoogayaal go'aankooda gadaal laga joogo waana sababta keentay kala huleelka iyadoo aan hadal wada jira la soo saarin. kulamadaas kadib xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xoguhu waxay sheegeen in qaadatay qorshaha labaad ee hirgelinta doorashooyinka waxaana u horeeya shaacinta nidaamka shuruucda iyo habraacyada doorashada. waxaa la qorsheeyay in guddigu soo saarto inta aysan dhammaan booqashada Rooble ee dowlad goboleedyada. 2 in magaalada Baydhabo oo koonfur galbeed noqoto xarunta maamul ee ugu horeysa soo saarista wakiilka ama senatarka ugu horeeya ee aqalka sare ee Soomaaliya doorashada 2021. qodobka 3 howlgelinta ciidamada sugaya doorashada iyadoo la diyaariyay cutubyo ciidamada oo fulinaya howlaha doorashooyinka qaarkoodna loo daadgureeyo dowlad goboleedyada dalka. in beesha caalamka loo bandhigo diidmada Puntland oo ay ku lamaan tahay jaalkeeda siyaasadeed iyo habqaysiga 4.5 ee Jubbaland. in Puntland iyo Kismaayo aan lagu marti qaadin xamar taa beddelkeedana gogosha wada hadal ku noqoto magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug. qodobadan waxaa barbar socon doonta in kala fadhiga baarlamaanku furnaado si wax kasta oo wax ka bedel heshiiskii hore ee hirgelinta inta doorashada loo marsiiyo ama muddo kordhinba haddii loo baahdo sida ay sheegayaan xogaha laga helayo dhinacyo kala duwan. maalmihii aamuska ayaa u muuqda hadda doorashooyinka Soomaaliya inay ka soo dhammaadeen. mar kale waxaa bilaaban doona mawjadaha war-saxaafadeedyada doodaha xamaasadda kiciya wafuud xanibaad la saaro iyo in beesha caalamku amar dadban soo saarto. faramarnaanta uu Rooble kala soo kulmay Garowe ayaa hogaaminta madaxweyne dani iyo doonistiisii magacowga ra'iisul wasaare ee bilo ka hor ku ah nabad siyaasadeed oo aan horey loo filan rogrogidna lagu darin.
waa cawaaqib siyaasadeed oo ah inuu iska ilaawo in casho iyo kulan mahadnaqa oo aan afka dhaasiisnayn uusan roob la imaan waxay ka dhigan tahay ciqaab siyaasadeed oo ay la kulmaysa Puntland oo horey u dalbanaysa in la magacaabo ra'iisul wasaaraha hanaanka doorashooyinka hirgeliya laakiin mar kale waa Puntland oo ay hayaan ra'iisul wasaarihii la magacaabay gabagabada mawjadaha ayay u badan tahay inay galaan sanadka cusub waa arrin kale oo u baahan maamul iyo maareyn gaar ah sida xaalku yahayna garta anaa leh guddoonkana anaa leh garsoorkana anaa leh waxaa muuqata inaysan jiri doonin tanaasul balse ay imaan doonto ismaquunin labada dhinac midkood ka timaada ama ay wada sugaan fariin ka timaada wakiilada caalamiga ee Soomaaliya